بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هابين وناكسن dhageystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan meel walba oo joogtaan iyo si soo gaarayo waxaan hawada idinka leeyahay habeen wanaagsan dabcan bilowgii barnaamijkan fanka iyo fiidsiga waxaan idiin sheegay inaan idiin soo gudbi doono qiso aad u macaan taasi oo dhex martay lamaane Soomaaliyeed waxay u macaan tahay cidda dhageysanaysa balse uma macaana lamaanihii ay ku dhacday qisadan waxay ka dhacday gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baardheere ee gobolka Gada koonfurta Soomaaliya qiso aad u xanuun badan oo dhex martay lamaane Soomaaliyeed oo waqtigu isku diiday kuwaasi oo kala jooga laba dal oo aad u kala fog alla jacaylku ku xaraara marka ay kala fog yihiin labadii lamaane ee isjecleed bilowgii jacaylkooda wuxuu ahaa horaantii 2000 waxa ay si wada jir ah ay u wada socdeen muddo dhan 10 sano Maxamed iyo Maryamo waxayna ku noolayeen magaalada Baardheere ee gobolka Gada koonfurta Soomaaliya waxayna ahaayeen lamaane daacad isku ah alla jacaylku daacadda ku wanaagsana oo qiyaamada ku qaraara kuwaasi oo xitaa waqtiyada qaar qoraalka isugu dira qayb kamid ah dhiigooda casaanka kaas oo shaambaha qalinka casaanka waa lamaane aad looga dareemay jacaylka xididada yeeshay isku qabeen Maxamed iyo Maryamo maalinta fadliga badan ee Jumcaha ayay ku kulmi jireen meel aad u macaan oo ay ugu magac dareen magaciyaga qaas u ahaa waxayna ahaayeen kuwa isla jooga muddo dhan 6 saacadood oo aan daqiiqad laga jarin laguna darin miyaan 6 saac fadhi karaa waa arrin aad u adag balse jacaylku taasi ma yaqaano Maryamo iyo Maxamed ayaa maalin Jumca ku kulmay halkii ay ugu magac dareen rugta kulanka caashaqa waa maalin aad u qabow waxa daay maalintaas roob aad u badan oo dabaylo watay balse iyagu ma dareemayn waxaasi oo dabayl dhacaya waayo waxa haya ninkii aan jidka iyo jihada lahayn ee jacaylka ahay oo aan xitaa lahayn indho iyo dhago toona waxaa halkaasi ka bilowday hadallo kaftan u badan oo ka soo maaxanayay afafka labada lamaane ee aadka isku jecel ee Maxamed iyo Maryamo alla jacaylku ku macaana in la isweydaarsado hadallo aad u macaan cidaan jacayl garanayn miyay qisadan waxba ka qaadan kartaa Maxamed ayaa ku bilaabay gacalisadiisa hadal aad u macaan kaasoo erayada ay ka qayb ahaayeen alla maanta Maryaney mayaay baada'aye miyaan marada teeyaa ku soo muquunshaa macaantaan jeclaayay Maxamedow macaanow ha muquunin marade intaasi kadib ayaa waxaa afka furtay gabadhii jacaylku ku dhammaaday ee Maryamo ahayd oo aan inta badan hadal looga baran alla maxay soo wadaa maanta waa su'aasha uu isweydiinayay ninkii Maxamed ahay ee jacaylku uu ku dhammaaday alla miyaad iska celi kartaa waran aadan ogeyn in uu kugu dhacayo xitaa aadan garanayn jihada uu ka soo wajahayo waxay ku bilowday hadal suugaan ah oo aan caadi ahayn balse aan u wanaagsanayn jacaylkeeda Maxamed baarigaan jeclaayow beerkayga qaatow berri waan baxayaa Bakistaan dhankiisan waxa ka soo baraya ee bay macaanow Baardheere ii joog barwaaqana ku noolow Maxamed waxa ku baryay waagii waxa uuna aamusay ugu yaraan saacad ilaa ay Maryan ka dhahdo gacaliya maxaa dhacay miyaad ka naxday hadalkayga waxa uu dhahay deriska biyo iiga keen bishimaha inaan kala qaado ayaa igu adage asaga oo cod hoose ku dhahaya hadalkaasi alla markii qofkii aad jecleed kelimo aadan ka filayn ay kaaga imaato miyaad baadiga dhan noqonaysaa qof aan jirin Maryan oo aan ku socon dhulka ama cirka maskax ahaan balse jismi ahaan ku socota ayaa doontay biyihii ay ku waraabi lahayd jacaylkeeda alla wanaagsaneeda in asagu uusan u dirin ee ay iyadu isgarato waxayna gabadhu xilligaani ka naxsan tahay hadalkii waranka ahaa ee ay ku dhufatay jacaylkeeda kaasi oo ahaa inay Baardheere ku celay doonto Bakistaan oo bixi doonto muddo kadib waxay u keentay biyo aad u qabow si lama filaan ah
ayay wejiga uga marisay alla beer wax jecel u nugulaa wax kasta in uu sameeyo xitaa qalad ha ahaadeene maxamed ayaa noqday sidii dooli biyo ku dhex dhacay oo kale balse waxa uu soo toosay isagoo aan maskaxda maxamed ka ahayn balse muuqa maxamed ka ah miyuu jacaylku beddelaa qofka maskaxdiisa miyuuse qofka muuqa ka dhigaa qof kale hadal suugaan ah ayaa wuxuu ka soo maaxday ninkii maxamed ahaa wuxuuna ku yidhi bilantaan jeclaayay baaridii haweenkaay ballantii ma beene aan bilowgi dhiganno miyaad beeninaysaa bakistaan u baxaysa bakistaan beleeyada kuu buubee maxay tahay bilantaan jeclaayay beerkaygii beleeya durbaba ku boodee intaasi kadib waxaa bilowday fakar aad u xanuun badan oo dhinaca kasta ah alla xanuun badana maxamed waxaa ka tegaysa gacalisadiisii oo adduunka ka eeganayay waxa uuna isweydiinayaa maxaa sidaan keenay aawa ballantii aad baariyadan dhigateen waxyar kadib waxaa la gaaray goor galab ah oo weliba casarliiq ah waxaana lagu ballamay in jumcaha dambe halkaana lagu kulmo oo leesisiid sagootiyo maadaama ay baxaysa gabadhii maryamo ahayd laakiin uu murugo halkaasi kula harayo ninkii maxamed ahaa oo ay ka tegi doonto gacalisadiisii maryamo ahayd maxaa dhici doona dhegaystayaal sheekada halkaas ayaan jeclahay inaan caawa ku soo gabagabeeyo haddaba qaybta labaad yaan lagaaga sheekayn ee adigu ka sheekay jumcaha soo aadan ayaan halkaan ka sii ambaqaadi doonaa maxaa dhex mari doona gabadhii maryamo ahayd iyo maxamed oo la filayo inay ku kala tagaan magaalada baardheere iyaduna ay u boqosho dhanka iyo dalka bakistaan ayna wax soo barato dhanka kale maxamed ayaa isagu waxa uu joogi doonaa islamarkaana uu ku xayirmi doonaa magaalada baardheere balse miyay isheli doonaan qisadan oo muddo socod doonta sidaan rajaynayno ayaad ku dhegaysan doontaan balse caawa halkaas xiisaheedu ha nooga kala go'o